ciidamada BSF ciidamada qaranka ay ku biireen isagana waa la qoraa kalkacaya laga qoraa haddana laascanood baaba furantay halkaas dadka aadi karaan halkaas ay aadaan wixii soko meelahan soko imaan karaan meelaha soko laga qoraayo dadka shacabka ee reer Puntland waa idin bishaaraynaya bishaaraan idin leh waxaan idinku bishaaraynayaa dawladda Puntland dagaal bay qaadaysaa dawladda Puntland dagaal gali mayso calmadow ilaa ay sifayso boosaaso ilaa iyo gaalkacay kuwaasoo laga sifaynayo horgallada calooshaqaystayaasha xasan kuwa uu lacagta siinayo ayaa laga daba jari doonaa lala xiri doono halsi lama geyn doono bal madaxa laga jari doonaa sidii saliid loo laayo kale ayaa loo laynayaa waana maalmaha soo socda ciidanka calmiskaad baana soo degaya ilaa boosaaso iyo ilaa gaalkacyo isku maalin lacagta la marinaya ku xisaabtama taas shacabka waxaan leeyahay diyaar garooba si aad ciidanka u garab istaagtaan oo xabadka fakada aad u soo qabataan u diyaar garooba yahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan dul istaago galabta wixii ka dhacay aqalka sare shalay waan ka raaligelinayaa xalay inaan ka yara mashquulay wixii wax aan muddo badan kala talinayay hagardaamada dhibaatada Puntland duminta Mooryan abuurka ay ka shaqaynayeen Mooryaanta xamar fadhidahay oo ina macallin fiqi u yahay afayeenka ayuu shalay qarxiyay ama shalay hadii alla ku rooyahay waa fashiliyay asaga fashiliyay waa dul istaagina marka waa dul istaagina halka inta barnaamij gelin waxa uga mahad celinayaa labada sanatar ee bahashan bashay fashiliyay waa sanatar madaxweyne hore Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo sanatar Goli Allah idin kalaamaya leeyahay taariikhda ay xusi doonto taariikhda ayaa xusi doonto waxaan rabaa dul istaago marka koobaad horta wixii fashilmay waa aragteen oo ka shaqeeyay ninka la fiqi ka shaqeeyay waxaan leeyahay reer Puntland xaaladdu maanta siday tahay waa u jeedaa Mooryaanta xamar joogtaani waa soo xidhxidhatay meel allaala meeshii tabar gaarsiisaba waxba reeban maya dawladnimo dadnimo waxaasoo xaggaan iska dhigay waa UNC oo reer hebel ah oo qamaamudan oo ordaysa oo de maalintii UNC gaalka ay soo weeraraysay oo ilaa iyo boosaan qabsanayna ay lahaayeenba waxba kamiina wadan wax dambi ka gasheen iyo waxa ka wada tirmidna ma jirin xamar bay dad ka soo qaxiyeen markay ka soo qaxiyeenna ilaa boosaasay rabeen qabsadaan wixii la ogaawaan ku dhacday barwaaq weyn ka dhacday tanna waa sidii oo kale UNC waa isku fakar kismaayana waa rabtaa boosaasana waa rabtaa horsaas way waa Mooryaankuna istaagi mahayo ilaa rubadaasi go'do rubada ilaa ay go'do Mooryaanku sababtoo wax ilaahay iimaanka ilaahay ka laalay waxa iimaan lahayn ina macallin fiqi wuxuu sheegay in ciidamo u joogaan Puntland ciidamo la yiraahdo PSF inay u joogaan oo laandheerayaal oo baalkiisan waxaan rabaa wiilasha ciidanka oo maanta dawlad lacagta la siinayay inaan dhowr kalmo iraahdo fariintayda gaarsiisaan adeerayaal wiil horta Puntland u dhashay baa tahay ina macallin fiqina kuma dhalin xasanna kuma dhalin iska wada xasan iyo baalkii ina diyaanaha wax lagu soo mariyahay kuma dhalin qorigana hadii alla ku idmahay haduu ku dhalay kuma dhiibeen iyalkiisu meelaha ka bartaan meelaha jooga garanaysan adeer Puntlander baa tahay ku dhashay Puntland ku koray Puntland korisay nabad iyo amni ku haysta hooyadii degantahay aabaha degan yahay adeer reer Puntland waa iyo Puntland waa gobolkaagi iyo dhulkaagi weyn adeer hal talan ku siinaya ama ina diyaana qoriga ku dhiibo xogaa lacag ku sii ama qoladan jimcaala ahaw ama kuwa mudug laga aruurinaya adeer tala yar baan ku siinaya fariinta wiilasha gaarsiin ina diyaano hadii caawa weerar dawladda Puntland isdagaashaan idinka dawladda Puntland in layso aruurtii ina diyaarana ma tihidin aruurtii jimcaala dhalay ma tihidin kuwa fiqi dhalay ma tihidin kuwa uu dhalay ninka la yiraahdo bahalkiina ma tihidin bal waxaa tihiin hooyadiin iyo aabihiina idin tabaya guriyihiina idin tabaysa haddaad dhimanaysaan Puntland adoo wax u qabanaya ama wax taraya dhimo maandhow
adoo Puntland difaacaya dhimo laga yaabaa aabaha inuu dhintay isagoo Puntland difaacaya laga yaabaa aabaha inuu dhaawacmay isagoo Puntland difaacaya adeer taas qaad adeer xasan daahir aweysba wiilal soo khalday reer Puntland ba sidaan ula socday barxadda garowa madaxyada looga jaray madaxyada laga jaray waxay ku suntan yihiin kuwaasi khaa'in wadanayaal bikun khaa'in walda ku suntan yihiin ayagoo khaa'in wadana dhinteen adeer kuwa ha noqon bal noqo kuwa almiskaad ku dhimanaya noqo bal noqo kuwa hadii alla ku idmahayo dalkooda difaacaya noqo sidaas meena adeer ha dhiman dalkaaga iyo hooyadaada qor u sita intaas aan oranayaa wiilasha yareerka ee sintiyada loo dirayo ee leeyahay ciidan baa noo joogay ciidan baa Puntland baan duminaynaa Puntland baan ku duminaynaa leeyahay ee loo diyaar garanaya dagaalka loo diyaar garanayo intaas aan oranayaa nin raga hadaad tahay hadalkaygu waa dilaab garan wiilka la hadlayo nin raga hadaad tahay si fiican baad ii laab garan waan kula hadlo hadaad nin raga aadan ahayna oo aad nin jilicsan ama nin liita tahayna ima fahmaysid bal qaab kale ku fahmaysaa qaab kale way ku fahmaysaa gacanta dawladda ku fahmaysaa intaas aan leeyahay dhallinyaradaas waaye senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole wuxuu caddeeyey oo maanta waa ii marakacay markhaanti buu ii furay wuxuu caddeeyey waxaan hore idinkugu sheego oo ahayd dowladda qatar inay tahay argagixiso dowladda qatar inay nacab tahay in argagixiso lala dagaalamo dowladda qatar inay ishayaan qof kasta oo argagixiso dagaalamaan qatar waa ishaynaa anagu waxa dacaayada aeroboort ka fudinayna waa qatar maxaan isku haynaa marka waxaan isku haynaa argagixisada inay koriso annaguna aan nahay argagixisa laayayaal waa kana cabdiraxmaan maxamed xanuun faroole madaxweynaha hore Puntland oo ka warramaya doorka qatar ku leedahay argagixisada ka dagaalanta calmadow madaxweyne soo dah aatum ninkii oran jiray 180 qof baa ku qoraa 180 qof oo dilay ay dileen ciidankaas iyo boosaaso waanu ka soo adkaanay calankii waa ka qaadanay baaburkii oo watay waa ka qaadanay buurtiina ka saaray xamar buu yimi dayniino soo lagu daaweyno dhabar ka jaban baleeshay istiyaar ku yaala baanu jaadis badan baan qabnay daynan loo joogay dabadeedna magaaladu galay madaxweyne xasan baa qadarka cusubtay inay qaataan halkii adeeyo xoolahaas qadar baa ku leedahay aniga dadka waa la xidhan macaamiisha malfalay looga soo qaaday 180 qof baa naga maqan iyo wixii naga baxay iyo wixii xoolo naga galay xoolihii dadku meesha laga soo diro dadku aado halkaas xiriirkiisu jiray halkaasuna jiray saas aanu ku ogaa dus meel kale jiray wixii kale oo inaga la dirsan qofba dawladdu ku xiriirsan yahay mar haddaad adu tabar lahayn oo lugahaaga isku taagi karin oo qolo isku tiirisid qoladaas aad isku tiirisid qolada ka soo horjeeda marka wixii adiga ka hoos jeeda gacansiin ilaa inagu aynu isku filaano inagu waxayna dhixnaan xallino oo dhibaatada waxaynu isku haysanayo naanaysooyinka iyo ninba meesha doona iska aadayaan xallino sidaas aynu ku dhex jirayaa ilaa dalkeena oo gacanta ka baxo horta waxa kacooy baxooy eelaboorka boosada ku hayo waa dowladda qadarna hala weydiiyo buurta calmadow hogaamiyihii hore shabaabka ay ku jiri jiray ninka la yiraahdo atam maanta wuxuu degan yahay qaahiruu degan yahay oo guri qasri uu degan yahay shaqadiisii markuu dhamaystay waa la bedelay ina kilwa lagu bedelay ina kilwe baa lagu bedelay asagiina wuxuu ku raaxaysanayaa fasax buu ku maqan yahay waa raaxaysanayaa shaqadii waxa u dhamaaday timeka uu shaqada hayaa u dhamaatay wuxuu ku raaxaysanayaa maanta qaahira horta dowladda qatar waa midda noocaasa weyn xasanna faroole wuxuu noo cadeeyay inuu xasan kala shaqeeyay inuu halka maro wadada xamar maro halka u kaxeeyo oo dhoofiyo ninka yaad atam xasan baa dhoofiyay tiimka USC iyo al-shabaab iyo inay macallin fiqi iyo mahad salaad iyo ninka la yiraahdo xasan horta waa wax isla weyn maanta siday u ama bixiyeen ninka la yiraahdo atamna bay biri kaba ka tukadee iyo caadeeran loo bixinayo isweeyaan qadar baana meesha ku haysa dowladdaasi waa dowladda yarta ee daciifka fiiri dib u raac
meesha la yiraahdo waxa daalimaan dib u raac